برامبوريو هاس أهلو يا عيال نبيا هيبديو هدالبان kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeeni sheekooyinka fanaaniinta iyo qisooyinka fanka Soomaalida. Haddaba inkastoo fanaaniinta Soomaaliyeed ay ahaayeen dad isjecel, isgacan qabta, isu hiiliya, welibana midba midka kale garab siiya, ayaa haddana waxaa dhacaysay in ay isku dhacaan, welibana ay isxaasidnimeeyaan, midka kalena uusan u ogolaanin midka kale inuu ka hormaro ama uu ka sara maro intaba. Haddaba isku dhaca fanaaniinta dhexdooda ahaa kama uusan imaaninin oo keliya dhanka fanka iyo weliba soo caanbixidda iyo weliba in bulshada laga noqdo qof aad iyo aad qiimo u leh, laakiin waxay kaloo iskula dhacayeen xagga nolosha caadiga ah iyo tan bulshada intaba. Haddaba maanta waxaynu soo qaadanaynaa qiso dhab ah oo ka dhacday laba fanaan oo gudaha oo bulshada Soomaaliyeed dhexdiisa caanka ahaa. Allaha u naxariistay Qadra Daahir Cige iyo weliba fanaanada kale maamada caanka ah Maryan Mursal Ciise Bootaan. Haddaba isku dhaca labada fanaan ayaa waxa uu ka yimid qiso jacayl iyadoo uu ka dhaxeeyay fanaanka caanka ahaa ee Axmed Cali Cigaal. Sida dadka fanka Soomaalida u dhundaloola ay sheegayaan iyo weliba fanaaniintaba, Qadra Daahir Cige ayaa iyadu waxaa la leeyahay waxay jacayl dhab ah oo lixaad leh u qaaday fanaanka Axmed Cali Cigaal. Qadra oo xilligaasi ahayd arday dhigata dugsiyada magaalada Hargeysa mid ka mid ah, Axmedna uu ka mid ahaa fanaaniinta xilligaasi ku sugnaa magaalada Hargeysa. Jacaylka ay u qaaday Qadra Axmed wuxuu ahaa mid laga ogaa gudaha iskuulkeeda iyo weliba magaalada iyo weliba xaafadda. Heesihiisa ayay aad u dhageysanaysay, markuu codkiisa soo galana inta raadiyowga qaadato ayay laabta gashanaysay baa la leeyahay. Haddaba si kastoo ay isku daydo inay Axmed ku hesho waa ay ku adkaatay. Ugu dambeystii waxay go'aan ku gaadhay inay fanka Soomaalida soo gasho, iyadoo ka mid noqotay fanaaniintii magaalada Hargeysa fanka ka soo gashay, iyadoo 17 jir ahayee fanka soo gashay. Axmed ayaa isagu waxa uu ahaa xilligaasi saygii qabay fanaanada Maryan Mursal Ciise Bootaan. Saalax Qaasim ayaa macallinkii koowaad u noqday Qadra Daahir Cige, fankana ku soo abaabiyey. Isla durbadiiba waxaa gacanta ku dhigay oo Axmed Cali Cigaal oo isaga u noqday macalinkeedii fanka iyo weliba kii nolosha intaba. Jacaylkay u qabtay ayay u dhiibatay, iyadoo weliba dhibaato badan kala kulantay qaabkii iyo habkii ay ugu iyo wadiiqadii ay ugu sheegan lahayd jacaylka Axmed Cali Cigaal. Heestii koowaad ay qaaday ayay abwaan kala tashatay una sheegtay inay jacayl dhab ah u qabto fanaanka, awoodina inay u sheegato. Ayuu abwaanka si sarbeeb ah oo aad iyo aad u macaan badan waxa uu ugu dhiibay hees tusinaysa jacaylka meesha ay ka gaadhsiisan tahay iyo weliba Axmed Cali Cigaal sida ay u jeceshahay intaba. haddaba Axmed oo isagu heestii koobaad la qaaday fanaanada ayaa isagu waxa uu gudoomay jacaylkii, waa uu la tabantaabiyey welibana la qaadqaaday, tiiyoo keenta in Maryan Mursal ay maqasho jacaylka cusub ee ninkeeda uu samaystay, taasoo ay ka carootay maseerna ka qaaday. Maryan ayaa iyadu xanaaqii iyo cadhadii ay ka qaaday jacaylka labada fanaan
waxa ay kula dhacday bannaanka iyadoo welibana hees cajiib ah qaaday oo la yidhaahdo xanaano. axmed si kastuu isugu dayay inuu qanciyo xaaskiisa maryan mursal ciise waa ay ku adkaatay iyadoo ugu dambeyntii ay kala tegeen aqalkoodina uu dumay axmed cali cigaal iyo maryan mursal. axmed jacaylkiisii cusbaa ee qadra ayuu la ambaqaaday. jacaylkaasi ayaa isagu waxa uu noqday mid miro dhala. axmed iyo qadra ayaa aqal seeska u dhigay iyagoo sameeyey famil aad iyo aad u qurux badan iyadoo weliba jacaylkooda iyo weliba aqalkooda uu ahaa mid astaan u noqday jacayl iyo weliba kalgacal intaba. laakiin halkaasi waxaa ku dumay qoyskii u dhisnaa axmed cali cigaal iyo maryan mursal. dadka fanka soomaalida ka faallooda ama u dhundaloola waxa ay leeyihiin maryan cugdad ayay ka qaaday aqalkaasi iyo jacaylka cusub iyadoo in badan kula dagaalaysa baa la leeyahay qadra daahir ciga jacaylkaasi ee iyadu axmed cali cigaal u qabtay iyo weliba aqalka cusub ula samaystay. inkastoo ugu dambeyntii xilligii dambe ay ka heshiiyeen oo dad saaxiibo ah oo aada isugu wanaagsan dadkan isaga dhow ay noqdeen ayaa haddana qisadaasi waxay ahayd mid dhab ah oo ka dhex dhacday labada fanaan intaba. intaas ayaynu kusoo gabagabeynayna dib dambeynteen u kulmi doona nabadgelyo.